السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to my channel. magacaygu waa Deeqa Maxamed. Maanta waxaa idin wadaa sida loo sameeyo tiramisu. Halkan hadda waxaa rabaa inaan ku shubo double cream oo 300 mililitr. Tiramisuga waa Taliyaan dessert. way macdahay way fududahay waxay ku fiican tahay markii marti ku soo socoto ama marka aad rabtid inaad dantaada aad u samaysatid. kan hadeer uu diyaarsan yahay ma u baahan inaan wax kale ku sameeyo. inta waxaan ku shubtay in yaro biyo qandac ah. inta waxaa igu jirta hal xabo ukun oo aan kala jabiyo kan wax ka baxsada dhexda. qaadadana isticmaalaa sida ugu shubo 2 qaando sokor ah. marka waxaa u baahan tahay inaad biyaha qandaca dhex gelisid oo wax u qaatid geedkaas oo marka qastid ilaa sokorta iyo ukunta isku raacaan sidaan oo kale. waxay ku qaadanay 10 daqiiqo at least. marka waxaa yeeli kartaa farta gelinay waa dhadhaminaysaa sida ku ogaatid. marka in yaro biyo kuleel kala ku dhameystirtay. kaas hadda waa iska yaraa wax yariis ka bacday. kani waa optional ma u baahantid inaad samaysid. waxaa sameyn kartaa 2 qaando sokor iyo waxaa isku qasi kartaa magaciisa mascarpone cheese ka isku qasi kartaa uma baahid inaad ukun ku darsatid. kan hada diyaar waay bis. hadda inta waxaan ku haystaa mascarpone cheese. hadda wadan joogtid oo laga helayo mascarpone cheese waxaa isticmaali kartaa double cream ama heavy cream qofba soo u yaqaano. laakiin aniga hadda wadankan waxaa mascarpone cheese ka helaysaa double cream ka helaysaa. waxaa u baahan tahay inaad si fiican u qastido oo isku raaco aslan saan oo kala noqdo creamka. hadda waxaan ku daray 1 qaando oo midda yar oo vanilla sida caraf ugu yeelo. inta hadda waxaan ku haystaa mascarpone cheese ko iyo qasan ukunti iyo 1 koob oo coffee ah. waxaa kaloo haystaa buskutkan dheerka sida doorsho camal waaye. waxaa u baahan tahay 4 qaando oo coffee ah. coffee caano wadanin oo wax kala wadanin oo kan caadiga ah iyo biyo qandac ina isku qastido meel dhigto ku qaboobo. hadda waxaan rabaa inaan isku daro. waxaan isku daraa mascarpone cheese ka double cream ka iyo ukunta iyo sokorti oo isku kariyay. waxaa u baahan tahay in yar ah in isku qastid. waa sida hore aan u dhahay hadda mascarpone cheese ka helaynin wadankaada meeshaada markaas aad ka fiirsanaysid oo joogtid double cream ka bis iyo ukunta isticmaali kartaa. hadda waa kana inta kale oo dhiman aan ku dhameystiray bis baa ii diyaarsan yahay. marka meelaan dhigtay waatan hadda qaxwadeedii aan soo qaatay. biskuutka marka waxaa u baahan tahay in hal xabba u gelisid oona ka khasmin. way wajilcan yahay wax jilcan waa sida wax amal u sameeyay doorsho kale. marka hadda kista kale kareemka qaado waa ku shubaa
wax kale u baahan tahay male doorshadan ama tiramisu-ga waxaa geli kartaa finitiirka hadaa rabtid 6 saacadood ku haysan kartaa kabacdi soo baxsan kartaa hadaa rabtid maxaa samaysan kartaa habeenka ka horeyso marka meel ku yeelan kara ama 2 biri ka hor wuxuu u macayaa marka aad wax ma qabtid martiqaad ama hadaa aad rabtid inaad samaysatid هذا واكن لايرك كوبات واسميي marka layerka lamaad hadda sameeyna qaybta labaad kor saara marka sidii la ku wada qaxwada waa ku wada hal xabo hadda sidii qaybtii ka horeysa aan sameeyo kalan ku sameeyay kiis kareemka kor ka saaraya kamariyay waa kan oo ku dabooleysaa marka hadda waxaa u baahan tahay cocoa powder hadaa haysatid haddii kalena waxaa yeeli kartaa sidiisa ku wada kartaa muhiim ma ahan waa hadda layerka saddexaad aan rabaa inaan saaro ama qaybta saddexaad marka mar walba waxaa u baahan tahay inay qaxwada inay qaboob ahaato ama kofeega baakad layerka saddexaad waa dhameeyay marka kareemka inta kale ii haray hada kor ka saaray baakaas waa ku dhameystiray marka waxaan yeelay hada markaas aan ku dhameeyay hadaa rabo saanan ku xareysan karaa finiteerka ama cocoa powder-ka kor ka saaray marka aan waxaa ka jeclaa cocoa powder-ka inaan kor ka saaray marka in yar aan ku shubay waa kana hadda ii diyaarsan yahay iswaysaan ku xareeyay marka aan maalinta kale ku xigto aan isticmaalay maalinta isla maalinta ma aadan cunin erayadii iyo laxankii abwaan isciid sheekh Abubakar Ilkajiir muusigii Maxamed Karaama codadka custom iyo Aamina waa kana ma ujeeda hadda wax kale u baahan tahay male asaab iska soo raacayo marka hadda videogan ka hesheen like dhaha subscribe dhaha notification kana daarto insha Allah waa inuu next videogeena waxaa idin rajeynayaa khayr iyo caafimaad bye bye